هلا السلام عليكم أصحاب الجنة كيكو حرنا أصحابتي زيتي سو مفعندين سو كبر بردين سو كهركشين أصحابتي سلام قالي هبدي سو مرينيا شيكو عسوا ما أنت سو بلعبة تعرفي إنا إذا شيكي وما أنت وحاوى عشاء إي شيكو وهذا هاد النوب بريم فهمت كافيه يا رعبيا شاهد سوق هذا سيت باك ريلاكس بكوز شيكو ذا ما أنت إذين هايو أنا ويجي يا بيسي وين كا قصلين تونتا وين كا يا بيني تونتا because شيكو ذا أنا حكت عادي مقالة أو هاي ما فهمت بسنا gabar Soomaali baa Ohio State City America mid ah baa maxaa lahaayay a lot of people maxaa lahaayay ay dhacday maxaa lahaayay lacag badan ka dhacday maxaa lahaayay oo I think sheekadan maxaa lahaayay sanado badan ay socotay maxaa lahaayay nothing happens overnight. I think this story waxa waa story ball rolling aan lahaa oo hore soo dhacday gabadhan I think dad badan bay soo dhacday laakiin aad urta maxaa lahaayay taxsiga dudulka badan marbu maxaa lahaayay afli wax ku dagaa or something like that gabadhan gabar ala TikTok hada soo gashay oo iyadana little famous deeqa la dhaho bay waxay ka dhacday $16,000 maxaa lahaayay horta inta ala waclam horta adduunyada dadka sida wax u sameeyaan maxaa lahaayay laakiin badana waxa badan dadka maxaa la galaaftay oo aamusan hada aragtid qof hadlaayo oo dhahay waa la dhaawaatay believe it or not 10 ama 20 qof waxaa jira iska aamusan oo dhibtooda qarsado dhibaataysan marka I wanted to shed the light on this story maxaa lahaayay sheekadan waxay u baahnayd in la sheego because anaga da Soomaaliyeed dadka waa aaminaa Soomaalidana waxa waaye gabadhan oo waa iska aaminaa waxa lagu dhahaa la ay aamin aniga qof soo walaalkaaga ahay qof matalina ahay dad ma dhici gabadhan dadka dhacda aragti tusbaxay wadataa waa qof wadaad qof hadhiisa ma ahan qofka dad buu dhacayaa ma fahanti at the same time inta soo kun oo dhacday marka sheekada yani hor dhicin I have a video araba ina fiirsataan as always ani proof idin wada ma fahanti sheekada waxa iska soo alifanay ma let's just watch a little bit of the video gabadha dhacday idka taqaan iyo sida gabadha ula macmiishay iyo waxyaalaha naagtaan ay sameynaysaa fiirsanina little bit not a lot like 1 minute amal fiirsanina insha Allah baan noo kala saxiixay waan soo noqday markaan soo noqday raadi waa gurigooda tag horta gurigii bay ka guurtaba gurigii hadday ka guurtay taleefankiina iga qaban weyde xagee ka helaa marka qof walba weydii mid hadda isoo wacayso kayf la dhaho iyadoo bartay wac walaalay hadda maxaan sameeyaa ilaahay baa been caay kayf laftirkeeda waa ay hakrata waa hakadso lacagtaydina ilamay raadin naagtaana ayada taqaanay oo ii keentay ayada wacmaan wana walaale macaan naagtama kala qabati naayna adeer maxaad iigu daawanaysaa namiyaadan adigu ayuutada igal hada taaqay waa mid nag badan hada taaqay maaniga ma aragtay maaniga lacagtaada ka qaatay in adeeray anigaba way iga maqan tahay dhuu da markaan la hadlaba anay intaas ay goosataa ma way qaldan tahay lacagta meelay geysalama yaqaan waa in lacagtaadi ku siisaa na ada igaliye maxan ku kaasoo dhacanahayna kaan naagta lacagtaydi iga qaad war waxaan muxuu yaa biibaya war albaabka naga soo xiray waxba ka soo galgalaye wax biibaya ka soo galay albaabkaas xir it's closed wallahi wax biibaya ay hormar laba jeer albaabkan ugu balqinay yaa qay wax darna biibaya soo galay wixii aan la aqooni intaas iyadina ay goosata naagta dhama inay noo dhaxaysta la rabay oo inay dhexdhexaadista la rabay oo muxuu ahaa ninka shiiqa in laga xishoodan la rabay bal aduu kaala sheeg tiina wajid kama helin tiina jiha kama helin markaan soo noqday meel aan aaday gabadha waxay tiri gabar baa YouTube kaalna galay ay lacagtii ka dhacday maxallaha ay gabadhan waxa ka maqan $10,000 laakiin aniga waxaan dhigaystay iyadoo Daahir Cali soo ka hadlayso gabadhan aan u maleeyaa deeqo dhahayso waxa iga maqan $56,000 all over maqan adii 30,000 gabadhay ka dhacday 16,000 I think ayaday ka dhacday waa $56,000 waxay bixisay $8,000 aan dhahay gabadhan oo hayo degan waxa loogu shaqeeysan yahay dadka qabaariijta inay lacag u gurto maxaa lahaayay lacagahay gurto dhan wadanka ma yeelaan because dadka marka lacag qaataan bangiga dhigtaan gabadhan lacagahay dadka gurto dhan bangi ma yeelaan waxay yeelaan overseas wadankii ay yeelaan hadda waxa lagu tunsay inay wadanka ku maqan tahay aday sheekadan maxkamadda Daahir Cali Suuwe ka dhacday maxallaha I think sheekada maxkamadda ka sii socoto waa ma fahantay
aniga waxa iga yaabiyay waxaa waaye maxaa lahaayay $30,000 gabadhaans iyo balaas $16,000 waa $56,000 marka inta qaade maxaa lahaayay dadkan maxkamad uu la tagi waayeen uu dhigi waayeen lacagtaas ay qaatay even though it's cash maxaa lahaayay still maxaa lahaayay proof waxaa yaala bangi marka lacag ka soo saaraysay you know sometimes it's hard in a cash horta qof aa dhacay lacag ay ka maqan naagta dadku waxa uu dhacday waxaa waaye because of the cash u maleeyaa qof duubo ma la waayo qof inuu isbiimeeyo marka lacagta uu dhiibaayo gabadhaan inuu duubo haddana waxaa la magaalooyinka dhan oo haayay maray dadka dheesa kaal ayuu taadin galiyay ay bad wiilasha Soomaalida oo dhan way dhacday wiilasha Soomaalida miskiin waa iska aamusaan mugtay gabdhaha hadal badan adiga kolay naagta waxaa dealer xataa way haysataa dadka gabaaridii ku dhacdaa gabaaridii ku dhibaataysaa gaariyay dhaxdaa gaariya ka gadaya tayralka xataa kuma siinayso gaarigi lacagtiisa adoo bixiyo lacag kale kugu sheeganay dhibaatooyin badan laga sheeganaya adduunka wallahi bila it's very sad qof xijaaban aniga marka xijaaban waxa u maleyn jiray inay yihiin qof oo maxaa lahaay oo ilaahay aad ugu dhaw ilaahay ka cabsidiisa aad ay ugu badan tahay waxa ogaaday maxaa lahaayay ma ahan because xijaabki iyo tusbaxa sometimes dadka qaarkood show off ay wataan fahamtay marka ilaahay naga dhigo ku ilaahay u dhawaado ilaahay isku xiro dadkaan lacagta ka maqana ilaahay xaqooda ha u soo sahlo aad baa ugu xumaaday sheekadan waana wallahi bila it's kind of funny it's kind of sad hada gabadhan maxkamada waaweyn la wadaa hadii gabadhan oo kale groupka dhacdo lawyers ay sameystaan dawladda soo faragalayso FBI soo galayso waa la baaraya maxaa la qoftaas baxar weyn ku jirta ma fahanti believe it or not hada dawladdan Mareykanka waxay bilaabeen qof kasta meeshu joogo in laga soo xiro ma fahanti hadii oo lagu tuhmo inay waxyaalo xun naagta ay sameysay maxaa la iyadoo Nairobi joogta laga soo xirayaa adduunka dhan iyadoo joogta laga soo xirayaa waa la keenayaa maxaa la ama Soomaaliya lagu xiraa ama Mareykanka lagu xirayaa marka cadaaladda umad Allah u sahlo lacagtooda ma maleynaa naagtas inay lacag ka heli doonaan lacagtooda meel kale la galiyay meesha la galiyaa la yaaban yahay how she took all this money and where she bought it maxaa la dad waxay dhahay hotel ku dhisatay dad waxay dhahayaan reerkaas qabaarida u shaqeynaysay marka naagta wallahi bila baxar weyn ku jirtaa waliga ma aragto qof bini'aadan dhibaataysid maxaa la hayay how talagalin because you never know one day way ka daba imaanaysa baxarka sameysay mid ka weynaado shaka koraa ma fahanti maxaa la hay wisdamkaas iga qaado insha Allah dhibaatada umada bin ilaahay ma aragtay waliga ku dad ha sameyn qalbiga ha gashan halaasa kaaga tagiya waxa ka codsanaya subscribe botsina isart like and share sifa maalin kasta video soo post garay insha Allah kaska garashada karti lagu kabay kalsoonida way u dhalatay waana kaafiya keligii talisa waana lama taabtaan ruuxu waa kow kan oo idin kartina waa ruux kun u dhiganto